alright soo dhawaada waxaa maanta fiirinaynaa waxa la yiraahdaa name range. Name range-ga waa markii aad selected intaa samaysay selection aad samaysay aragti magac gooni inaad u bixisid si hadhow si fudud aad u heshid. Tusaale ahaan intaan alaabtaan rabaa magac inaan u bixiyo, halkaanaan tagayaa waxaan u bixinayaa alaab intaraan leh. Okay, hadda daan furo name box-ka fiiri alaabaa ku qoran. xaqiiq waxa ahaa haddaan halkaan joogo oo aan dhaho waxaan u baahanahay alaab waa i keenaya waa tanaa u leeyahay alaabti. waxaa kaloo jirta haddii aan dhaho tiri haddii aan dhaho tusaale ahaan equal haddaan dhaho country haddaan dhaho tiri haddaan dhaho oo maxaan tiriyaa markuu yiraahdo aan iraahdo alaab wajida waa kana soo qabto wajida aan double click garay tiri aan dhaho fiir waxa dhacay wuxuu yiri waa 17 alaaman tegaynaa bal aragna inuu runtu sheegay waa kana hadda halkaa fiirist fiir markaan select garay fiir wuxuu leeyahay 17 count waa 17 alaabtan waa 3 maartay 17 different products alaabaha magacyadooda kala duwan waay. marka saas uu name range-ga ku fiican yahay waxaa samayn kartaa waa tiri kartaa haddaa u baahatid. hadda daan tagno formulas name range delete aan dhahno okay aan leenahay tirtir close this ma tirtiray waa baxay waa ka ma arkaysid waxaan kawrna haddii aan rabo intaan oo dhan inaan waxaan dhan magaca u bixiyo. marka hore wax space ma jiri karo. space waa inuusan lahaan waay ma fahad waa inaa wax u dhexaysiisid amaba keliya u bixisid revenue u bixisid oo keliya magarta intan unit sol waa inaa adigu wax u dhexaysiisid waay ma fahad. okay waa inaysan space u soo dhexayn waay. okay waxaan select garaysanayaa meesha dhan ay wax ku qoran yihiin control haddaan taabto i wada select garaysaa ujeedid formula aan tagayaa create from selection aan leeyahay tab row-gaan aan rabaa magacyadu inay noqdaan kanaan ka saaraya okay aan leh. hadda marka name box-kaan furanaa fiiri meeshaan marka wuxuu yiri price waa ka revenue oo totalki aan data ka reebnay waa kana ma aragtaa unit sol waa kaas ah ma fahad. marka haddii aan rabo ka waran sum hadda intaan sumkeeda haddaan rabo inaan hadda halkaan saa ugu jeedid sumka wuxuu dhahay waa 50,163. okay waa jeegaraynayna marka halkaanaan tagayaa waxaan leeyahay equals sum maaragta maxaan sum ka dhigaya marka revenue-gan aan rabaa inaan sum garay inter dheh waa kana marka wuxuu yiri haddii aan format garay sidoo kaasuu format garaysan yahay 50,163. haddaa inta tagtid revenue-ga aad tagtidna waa aragtaan 50,000 sumka waa 50,163. marka waxay ku sahashay marka adoo meel kastaa joogtid waxaa heli kartaa meeshaa degdeg ugu baahnayd pricekii degdeg marka name range-ga taas uu maaragtay ka caawiyaa qofka inuu u sahlo in sida navigation-ka maaragtay sida maaragtay meesha isla markiiba point aad joogtaa pointiga kale ugu boodid ama calculation-na aad samaysay adigoo aan soo raadin meeshii ay ku store garaysanaayeen adoon soo raadin waxaa isticmaalaysaa keliya name-ka aa u bixisay oo name range ugu jira taasna waxay ku sahlaysaa inaad calculation-na aad samaysid. waa tirtiri kartaa name range-yada dhan waa ka saari kartaa sidaan idiin sheegay all you need waxaa waa formulaas tegaysaa waxaa leedahay name waa kana name range marka waa wada select garaysanaysaa delete leedahay all of them ku weydiinaya yeesaa leedahay waa kaasa adeertaana waa kana wax name range iyo wax magacaaban ma jiraan. marka maanta waxaa aragnay sida loo sameeyo name range-ga sida loo sameeyo waxa ay qabtaan iyo sida maaragtay loo tirtiro amaba haddaad doontid rename-na u samayn karto magac kale ugu bixin kartid. waxaa inoo ballanaa next clip.